waxyaabaha colaadda kicin jiray waayadii hore kuma jirin hadal qof uu meel ku qoray media ama hadal in oday ka hadlay tuulo uu gaaro magaalo kale oo arintu ka hadlay tuulada uga hadlay khusayso waxa laga yaabaa inay muddo qaadan jirtay in gabay la isku gudbiyo gabaygaas muddo ka bacdi halka dhinaca kale laga maqli jiray laakiin caawa dhiisa isla caawaba qolihii kale waa maqleen warkii duwarkaas marka war dhiilo colaada sida uu yahay dabcan dareenkii isla caawaba wuxuu gaaray dhinacii kale marka conflict drivers colaadaheena mid kamida buu noqday social media da waxyaabaha yaala waxaynan aqoon u lahayn waynan aqoon nolosheenu waxaan la dhaho beenta casriga anigu aan ugu yeeray beenta casriga maalin walba siyaabo kala duwan baynu qayb uga nahay waxaan la dhaho misinformation iyo disinformation si yar haddaan isku taago waxa weeye misinformation waa been caadiya oo qof sheegay social media ku sheegay wax beena qofkaas waa sheegay disinformation waxa weeye waa been aan si kul talagal ah aan kugu sheegay af Soomaaliga waxaan ku noqon marin habaabin mar inaan ku marin habaabiyo baan warkaan kugu soo dhigay intee in leeg baa marka qayb ka noqotaa ma isweydiis intee in leeg baa dhageysataa beenta casriga intee in leeg baa inta dhageysatay baa isla markiiba aad u gudbis adigu beesha fadhiyaan soogeyn waxa ka noqotay qof qayb ka ah chain-ka warkaas uu ku fidayo waxyaabaha aynan digital-ka markaynu raahno aynan la qabsigeeda aynan ka fakirin daam teknolojiyadu marka hore ay inagu cusbeed waxay keentay wax walba dhex yaala inaynu qaadano run haddaan kugu yiraahdo maanta Google-kan waxa ka arkay oo saa ku qeexay waxa la hawla Google ku arkay ma jirto mar war ma leh wax sax ah way Google search engine aad baa gelin kartaa ana waa gelin karaa laakiin ka wuxuu ma shay waan arkay marka heerka inteenu aaminaada dul saarnay aad buu u sareysaa taasna waa tan keentay marka inaan qayb ka noqono inuu aamino wax walba social media da yaala inay yihiin run maxay marka social media da noqoto hub la isku adeegsado